inta ka sheegay shantii bishii sideedaad 2016 ee aan golaha baarlamaanka isugu yeeliyay ee aan caynka ah war wuxuu ahaa midaan ku badbaadinayo inaan khasaare ka dhicin dadka kan oo aan dhibaato qoyseed iyo mid siyaasadeedna saameyn naga yeelan dhibaato arrimaha la wado ee harrahna laga keenay waxaan ku badbaadinayay ummadda reer Khaatumo inaan wax la isu gelin oo dad kale oo dhaqaale laga soo tuuray oo malaasii shaqadii bay ka dhamaanaysa hadii la wada hadlo ama la heshiiyo ninkii iga duubayay kanoo ah war waxaan cadeynayaa wuxuu nin dabadeed ka digay meel uga tooboon buu waayay meel aan istiraada xal kalaad u maraysaabaan waayay markaan arkay maaskii soo jeeday waxa la war ninka hadda doonaysa aad qabato wala la qabaama war wax badan ma ku qabanay ninkii ujeedo kale ka ahaa waan isgaranayna ilaa markaan warka sii daayay rag badan baa dad badan baa la soo xiriiray ama dawladda ha joogeen ama ha joogeen maamulada hareeraha war baarlamaankii aan isugu yeedhay duruuftaas ay igu kaliftay waxbaan badbaadinayay wargooyihiin ku kala sugnaaday inta ay war shir dambe yeelanayno duruufta ay marisay wada ka sahlan baan waayay arrinkaasina caynka weey waxaan bulshada reer Khaatumo u ballan qaadayna in aanu sharaftooda marka xitaa la wada xaajoonayo inaan xaajo daciifa oo liidata ugu xaajo qaado yaan u halkan uga sheegaynaa shirkii ka dhacay shalayto oo ay bishu ahayd 4/2016 magaalada la yiraahdo Caynabo waqooyiga Soomaaliya oo ay qayb galeen laba xubnood oo ah golaha wasiirada ee Khaatumo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Khaatumo waxay ahayd arrin u dhaxaysay iyaga iyo madaxweynaha oo kaliya naguma metelaan wakiilna nagama aha waana ka xunnahay raalina kama nin sidaa darteed maanta oo taariikhdu ay tahay 5tii bisha 8aad 2016 waxaan ku wargelinayaa dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka ee Khaatumo inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn ama degdeg ah muddo 4 casho gudahooda oo ku aadan 9ka bishan 8aad 2016 si ay uga wada hadlaan arrimahan aan kor ku soo sheegay dadweynaha reer Khaatumo waxaan ka codsanayaa inay nagu ixtiraamaan wixii ay noo doorteen ee aan wakiilka uga ahayn annaguna anoo ku hadlaya afka golaha baarlamaanka waxaan u ballan qaadaynaa inaan ilaalin doono dhowrana doono sharaftooda iyo karaamadooda wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiye haddaan su'aal ku aan weeye wax su'aal male